إلهي سبحانه وتعالى ما هاد إسكاله halkan isku keen soo aruuriyay Allah subhanahu wa ta'ala noo suurtageliye maanta inaanu imaano anagoo weyneynayno kitaabkiisa Quraanka Kariimka ah mahadcelinta Ilaahay kadib waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan dadka ka soo qayb galay iyo intii soo abaabushay iyo hoolka weyn cidii noogu deeqday maantiin waxaan Ilaahay ugu baryaynaa inuu khayr ku abaarmariyo inta kadib maanta waxaan iskugu imaanay bandhiga kitaabka Quraanka Kariimka ah qayb kamid ah oo la tarjumay oo luqadii hooye af Soomaaliga hel lagu tarjumay anagoo ma aragtay yaani bandhigaas iyo furitaankiisii baa iskugu nimaan waxa isweydiin marka hadalka ma badan doono kelimada furitaanka leenahay marka horta ku soo dhawaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga dhigo kuwii ka faa'iideysto Quraanka la tarjumay sheekhi qoray ee waqtigiisa galiyay ee sanadaha waday ee intaas oo maaragtay dad kala tashtay intaas oo maraajica ka keenay Ilaahay miisaankiisa xasanaadka ha u saaro Ilaahay sadaqa jaariyana ha uga dhigo inta kadib waa dareemi karnaa ahamiyada ay leedahay Quraanka Kariimka ah oo ah kitaabkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo soo dejiyay ee nolosheena adduunyo iyo midana aakhiraba noo hagayay ee adduunyadana ay ahayd dastuurka isku maamuleynay in luqadani lagu tarjumo oo dadka maaragtay aan Carabiga si fiican u aqoonin af Soomaaliga ay ku aqristaan si loo soo dhaweeyo fahamka Quraanka Kariimka si dadka loogu soo dhaweeyo Allah subhanahu wa ta'ala Quraanka markuu ka hadlayay waxyaabaha loo soo dejiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru aayatihi الشيخ عبد الرحمن السعدي مركو فسيره وحيري كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب وايه أنسو كوسو دجنينو محمدو ومبارك لبركة أي فيه خير عظيم وعلم غزير يري كتابك وحا كجرا خير تربضا يا علمي آدي أدو تربضا كجرو ليدبروا آياته آيات كيسا إنه كتدبران درادد وحولي مركا ليدبروا آياته مركو دهي ليتدبر الناس آياته كتاب كاسي dadka inay aayaadkiisi u fiirsadaan oo ku tadabburaan fayastakhriju minhu ilman ay kala soo dhaxbaxaan ilmi inay kala soo dhaxbaxaan wayataamalu asraaraha wa hikamaha oo u fiirsadaan aayaadkaas Quraanka asirtu ku jirta iyo xikmada ku jirta inay u fiirsadaan daraadad baa kitaabkan loogu soo dejiyay ama aan kitaab uu xafladaha aan ku furano oo meelaha maaragtay aan Quraanka la isaaro kaliya maahane waa kitaab asraarta ku jirta iyo xikmadaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala in la gaari karin ee ku jira wuxuu naga fahamsiin loogu talagalay inta u fiirsano oo ku tadabburno aan kala soo dhaxbaxno saasana loogu keenay inaad ku tadabburtidna waxa qayb ka ah kitaabka inaad fahmaysid oo Quraanka wuxuu ka hadlayo inaad fahmaysid marka inaad Soomaali laga dhigo waxay kamid tahay in la soo dhaweeyo fahamkii kitaabka Quraanka ahayd in la soo dhaweeyo baahi aad iyo aad u tiro badan waa loo qabay waliba xilligan hadda aan joogno aniga waxa la yaabaa 10 sano ka hor iskuulada markaan joogi jirnay af Carabiga wax kasta ku dhigan jirnay Carabigana ardayda u sahlanaan jiray laakiin hadda iyo xilliyada ka dambeeyaba waxa moodaa in luqadihii kala loo badanayo ardaydii dhalinyarada in badan waxa arkaysa oo qariibsan oo isla Carabiga iskuma fiicnin Carabiga da isku fiicneen maxaa marka Quraankiisa oo ku fahmaysa af Carabiga ku soo dagay sheekhi marka dadaalo af Soomaali nooga dhigay aad iyo aad u mahadsaneen waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysano ficilna Quraanka Kariimka waxana la karo waxa waa inaan fahmno